عليكم ورحمة الله وبركاته. warbixin yaab leh oo hadda soo baxday ayaa sheegaysa in Israa'iil ay qasaaro weyn kala kulantay weeraradii ugu dambeeyay xuutiyiinta dalka Yemen ay ku qaadeen gudaha Israa'iil gaar ahaan airportka Ben Gurion iyo dekada Haifa iyo qaybo kale oo kamid ah gudaha Israa'iil. warbixin arinta ku saabsan ayaynu barnaamijka qodobka ugu horeeya galabta isku eegi doonaa. qodobada sidoo kale galabta barnaamijkan idinku hayna waxa kamid ah dawladda Sacuudiga ayaa si rasmi ah waxa ay maanta u shaacisay tirada sanadkan la filayo xujaajda inay ka qayb galaan gudashada xajka sanadkan. yana waan isla eegaynaa farqiga u dhaxeeya sanadkan iyo sanadkii hore, maxaa sanadkan lagu soo daray xajka, maxaa isbedela oo jiro, iyana macluumaad ayaan idinkaga haynaa oo aan dul istaagi doonaa. qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doonta yana waxa kamid ah dawladda Ruushka oo isbuucan la kulantay khasaarihii ugu weynaa oo ay u geysato dawladda Ukraine. Ruushka ayaa la sheegay in laga burburiyay 40 diyaaradood iyadoo guud ahaan khasaaraha gaaran la sheegay inay gaarayso 7 bilyan kadib markii la sheegay Ruushka in uu gaaray macluumaad laga helay sirdoonkiisa. sidee arinta ku suura gashay iyo waxaynu sidoo kale qodobkan isku eegi doonaa wada hadallada uga furmay wajigiisa labaad Turkiga gudihiisa dalalka Ruushka iyo Ukraine oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga Hakan Fidan. aynu ku bilowna barnaamijkeena galabnimo maanta qodobka ugu horeeya ee ku saabsan qasaaraha la sheegay Israa'iil inuu soo gaaray kadib markii xuutiga weerar aan kala go' lahayn ay gudaha Israa'iil ku qaadeen. haddana macluumaadka soo baxay ayaa sheegaya in khasaaraha Israa'iil uu soo gaaray uu la xiriiro nidaamka difaaca Israa'iil oo aad qaali ah oo kharash badan uu ku baxo. waxaa lagu waramayaa in Israa'iil kharashka uga baxaya weerarada ay u fudud yihiin marka la eego kharashka uga baxaya nidaamka difaaca. Israa'iil ayaa u baahan baaliyir mar walba hawadeeda ay soo galaan laba qaabka koowaad oo ah nidaamka seeriga digniinta bixiya kaas oo inta badan xilli walba gudaha Israa'iil ka daaran magaalooyinka waaweyn Jerusalem iyo sidoo kale Tel Aviv iyo goobo kale oo gudaha Israa'iil ku yaala ay ka mid tahay Sidriyot iyo qaybo kale. nidaamkan ayaa la sheegay kharash badan inuu ku kaco sidoo kale khalkhal uu geliyo dadka ku nool gudaha Israa'iil iyadoo la sheegay dhanka caafimaadka dhimirka dadka Yuhuudda inay saameyn ku yeelatay nidaamkan cabsida badan geliyo iyadoo mararka qaar kumanaan kun oo ka tirsan dadka Israa'iil ay galaan godad dhulka hoostiisa oo loo diyaariyay marka ay timaado ama ay wajahaan khatar aad u weyn. ayadoo dhanka kalena la sheegay in nidaamka difaaca Israa'iil iyo sidoo kale kan Mareykanka uu kharash badan ku baxo taas oo ay sabab u tahay baa la leeyahay weerarada xuutiga mar walba oo ay soo qaadaan xuutiga ama ha isticmaalaan diyaaradaha droneska ee aan duuliyaha lahayn ama gantaalada oo ay ka mid tahay Falastiin gantaalka ay u bixiyeen iyo kuwa kaleba intaasi ay keenayso difaaca Israa'iil malaayiin dollar inay ku kacayso. isku dar waxa la sheegay isbuucyadii ugu dambeeyay Israa'iil inay wajahday dhaqaale aad u badan uga kacay difaaca ay nidaamka difaaceeda isticmaalaysay si ay uga hortagaan gantaalada hawada Israa'iil soo galaya ee ka imanaya dhanka iyo xuutiyiinta. labada dhinac Israa'iil iyo xuutiga ayaa isbuucyada la soo dhaafay weerar halis ah isdhaafsaday iyadoo Israa'iil ay qaybo badan oo kamid ah airportka weyn magaalada Sanca ee Sanca International Airport ay burbur weyn gaarsiisay taas oo la sheegay in guud ahaanba ay cuuryaamisay in airportka uu si rasmi ah u shaqeeyo. ayadoo arintaasi ay ka jawaabayso xuutigana isbuucan waxa iyana si daran u duqeeyeen airportka weyn ee Ben Gurion oo ay ku keentay in xitaa nidaamkiisii hawada kala hagayay uu khalqal weyn galo. ayadoo dhanka kalena magaalada Jerusalem iyo qaybo kalena laga soo warinayay gantaalada xuutiyiinta nidaamka difaaca Israa'iil inay sheegeen ciidankooda inay ka hortageen oo ay qabteen qaar badan oo kamid ah gantaaladaasi. haddaba qubarada military dadka dhaqaalaha ku takhasusay ayaa waxa ay ka faaloonayaan oo ay leeyihiin difaacan faraha badan ee Israa'iil maalin walba leedahay waxaynu ka hortagnay qaar kamid ah gantaalada xuutiga in ay ku keenayso dhaqaalaheeda oo uu saameeyo iyo sidoo kale kharash aad u xoogan oo uga baxo. ugu dambeyn waxay warbixintu ku soo koobaysaa macluumaadkeeda in Israa'iil ay uga fududahay difaaca weerarka oo macnaheedu ay tahay marka ay weerar qaado ay uga dhaqaale yar tahay marka ay difaac gasho. qodobka markaynu meesha uga gudubno ay warbaahinta maanta wax ka qoreen ee ku saabsan
xaaladda Israa'iil iyo Xuutiga dalka Yemen oo sii kululaanaysa iyadoo gabi ahaanna Mareykanka uu sheegay in Xuutiga heshiis uu la qaatay taana ay keentay in meeshaasi ay ku noqoto Israa'iil kaligeed iyo Xuutiga. qodobka xiga barnaamijka ayaanu toos u galaynaa iyadoo uu noo soo socdo macluumaad cajiib ah oo ku saabsan xaaladda sanadkan xajka iyo tirada xujayda ka soo qayb galayso farqiga sanadkan iyo sanadkii hore iyo sidoo kale Iran oo ka hadashay sameeyshada hubka nuclearka iyo warka been abuurta ay ugu yeertay in Iran nidaamka halista ee nuclearka ay qayb ahaan 60% ay sameysatay sida uu sheegay isbuucan Rafael Grossi oo ah agaasimaha hay'adda nuclearka caalamka ee loo yaqaano IAEA. laakiin aynu ku hormarno wada hadallada uga furmay Istanbul dalka Turkiga Ukraine iyo Ruushka ee uu dhexdhexaadinayo dawladda Turkiga wasiirkeeda arrimaha dibadda Hakan Fidan. waa wajigii labaad wada hadallada. maxaa la filayaa? waxaa la leeyahay wajigan ee labaad waxaa laga filayaa laba arrin ama laba qodob oo muhiim ah inay ka soo baxaan taa oo kala ah in loo gogol xaaro inay ku kulmaan madaxda ugu sarreyso dalalka Ukraine iyo Ruushka. hadda waxaa jooga wasiirka arrimaha dibadda Ukraine shirka ka qayb galaya. waxaa sidoo kale shirka hadda maanta fadhiya la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha Ruushka ayaa ka qayb galaya. macnaheedu waxa ay tahay madaxweynihii Ruushkana ma jooga kan Ukraine wali ismay arkin tan intay wada hadallada socdeen. marka shirkan maanta wajiga labaad wuxuu gogol xaar u yahay sidii ay ku kulmi lahaayeen in laga shaqeeyo Putin iyo Zelensky waa Ukraine madaxweynaheeda iyo madaxweynaha Ruushka. qodobka labaad ee laga filayo shirkan inuu ka soo baxo ayaa la sheegay inay tahay shuruudaha heshiiska la galayo in iyadana la isla dejiyo oo la isla qiimeeyo kadibna loo gudbo wajiga ugu dambeeya kaas oo inay madaxda kulmaan heshiis wax ku oolana uu ka soo baxo. waxa arintan ay u muuqataa in ay ku hormartay oo wax badan ay ka qabatay dawladda Turkiga iyadoo markii hore uu daneynay madaxweynaha dalka Mareykanka Trump in uu ku darsado wax qabadkiisa iyo guulaha heshiisiinta caalamka uu ka hirgeliyay dagaalka Ruushka iyo Ukraine uu soo afjaro. laakiin Ruushka ayaa u muuqday inuusan Mareykan aaminaynin midka kaniisadda joogay iyo midka afka hore dagaalka fadhiyo iyo midka sheegay inuu yahay nabadoon inuu yahay intaba inuu aaminaynin ay u muuqataa oo waxay u muuqataa in Ruushka isku mid ay u tahay xisbiga dimuqraadiga iyo Republicanka labada. haddaba maxaa dhacay isbuucan waxaa lagu waramayaa Ruushka in uu soo gaaray qasaarihii ugu weyneyd tan intii dagaalka uu ku qaaday ama ay wada dagaalameen Ukraine iyo Ruushka. dawladda Ukraine ayaa sheegtay inay ka burburisay Ruushka 40 diyaaradood isbuucan. 40 diyaaradood ayaa waxa yaab leh in ay ku jiraan diyaaradaha qaada madaxa nuclearka. qasaaraha guud ahaan gaaray Ruushka waxa lagu sheegay sida ay Al Jazeera iyo warbaahinta Reuters kulli ay qorayaan $7 bilyan oo dollar. waa lacag aad u badan. sidee arrintan ugu soo gashay Ukraine in qasaaraha inta la eg Ruushka ay ku sameeyso? warbixintu waxay leedahay sirdoonka Ukraine ayaa waxa u suura gashay ila macluumaad sir ah u leeyahay sirdoonka Ruushka inay gacan ku dhigaan. dood ba hadda gudaha Ruushka ka socoto adduunkana waxa la iska weydiinaya sidee siraha sirdoonka Ruushka ay ugu gacan gashay dawladda Ukraine. ma sirdoonkii Ruushka ayaa la iibsado musuqmaasuq baa dhacay ama dawlado kale oo banaanka ayaa ka caawiyay Ukraine ilaa iyo heerkan inay qasaare intaan la eg ay ku dhufato Ruushka. Ruushka waa uu careysan yahay waxa uu ballan qaaday inuu argudan doono oo uu qaadi doono talaabo uusan horay uga qaadin Ukraine. haddii aysan wada hadalladan si degdeg ah xal uga soo bixin waxay u muuqataa in dagaalka uu gali doono waji aad u adag oo waxa lagu waramayaa inuu noqonayo waji khatar badan gali doono qaaradda Yurub guud ahaan. waayo walalaha qiimiga leh qodobka iyo qodobkii ka horeeyay markaynu meesh ugu gudubno intaynu u gudbin labada qodob ee ugu dambeeya barnaamijka oo kala ah warka wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas oo ku sugan dalka Masar uu jeediyay isagoo uu garab taagan yahay wasiirka arrimaha dibadda dalka Masar ee ku saabsan arrimaha nuclearka wada hadallada Mareykanka iyo Iran. jawaabta uu ka bixiyay Abbas ayaan isla eegi doonaa. sidoo kale waxaan idin hayaa macluumaad cajiib ah oo ku saabsan arrimaha xajka sanadkan iyo warkii u dambeeyay ay soo saartay wasaaradda arrimaha xajka dawladda Sacuudiga. laakiin marka hore walaalaha qiimiga leh aynu ku yaraha kan waxaynu soo gaarnay qaybtii ugu dambeysay barnaamijkeena galabnimo ama maqribnimo xilliga ay ku tahay. qaybtan ugu dambaysa caawa waxaynu iskula eegaynaa
sanadkan xujaajda xujinaysa ama xajinaysa war farxad leh ayaan idin wadaa oo ay soo saartay dowladda Sacuudiga taas oo ah tirada sanadkan soo xajinaysa inay ka yar tahay tiradii sanadkii la soo dhaafay la sheegay inay xajka yimaadeen oo Ilaahay u suurageliyay inay xajiyaan 1.8 milyan oo macnaheedu ay tahay 1,800,000 oo qof inay xajisay ay ku waramaysaa sida Al-Jazeera warbaahinta kale ay ka soo xiganayaan wasaaradda xajka ee dowladda Sacuudiga sanadkan waxa la sheegay in xujaajda ay gaarayaan inta soo xarootay ilaa iyo hadda ama guud ahaan ay dhan yihiin tirada dadka xajka imanaya 1.3 milyan taas oo macnaheedu ay tahay 1,300,000 oo kun oo kaliya ayaa sanadkan xajinaysa waa in ka yar 1 milyan iyo bar waxay aad uga yartahay sanadkii hore 500 oo kun ayay ka yartahay inkastoo sanadkan uu kuleelka la sheegay aad inuu u daran yahay haddana talooyin ayay bixisay hay'adda oo ay ka mid tahay in dadku biyo ay qaataan mar walba biyo qabow ay qaataan dalada la isticmaalo waa waxyaabaha dadka aadka u caawinaya dalada cad waliba in la isticmaalo sanadkan waxa aad loo adkeeyay haysashada baalka loo yaqaan kaarka loo yaqaan nusuga ama kaarka aqoonsiga taas oo lagu la taliyay dadka dhammaan in ay isticmaalaan qofka aan wadanin booliiska culays uga imaanay dib badan ba uga imaanaya dadkii magaalada Maka joogay inta badan sanadkan nusug ba xitaa kuwa shaqeynayo waxa loo sameeyay nusug gaar ah oo la dhaho nusuga shaqada nusug hadii aan si kale idinku sheego waa kaar dadka xujaajda kaliya ay isticmaalayaan dadka reer Maka iyo reer Madiina gaar ahaan reer Maka nusugaas mar walba waa inay wataan dadka xujaajda kooda uu ka duwan yahay dadka shaqaalaha ayagoo ciqaamadooda haysta ay haddana waxa laga rabaa nusug oo midka shaqada inay wataan oo macnaheedu ay tahay bishan inay wataan kaarkaas ayaa khasab mararka qaar waxa dhacaysa dukaamanka qaar shaqaalaha aanu soo saaray nusugaas ama kaarkaas ayagoo ciqaamada la shaqada inay shaqeeyaan ay ugu qoran tahay maadaama nusugi ay samaysanin xilliga xajka dukaamanka qaar sida in nalooga waramay mid kamid ah dadkii dukaamankooda shaqaalihii laga saaray dukaankii cidla ayuu qofka dhex fadhinaya oo shaqaalihii baa laga saaraya nusuga oo wadan darteed saa darteed dadka Soomaaliyeed ee xujaajda sanadkan waa in ay nusugooda wataan meel walba iyo goob walba oo ay tagayaan oo ay soconayaan waa waxyaabaha runtii sanadkan cajiibka uu ku leeyahay taas waa waxa keenay in tirada dadka xujaaj sanadkan ay hoos u dhacaan waayo dad badan oo reer Maka oo xajin jiray gudaha Sacuudiga dadka soo xajin jiray Jeddah meelahaas ayaa sanadkan ay u suuragelin inay xajiyaan nusugaas darteed tirada saxda ah dadka saxda xujaajda loogu talagalay kaliya ayaa xajinayso marka waa waxyaabaha sanadkan uu runtii la isleeyahay tirada aad bay u yar tahay waan rajaynayaa inuu Ilaahay si salaamaan noogu bilaabo si nabadgelyan noogu dhameeyo insha Allah ta'ala dhamaantiin waa idin soo ducaynaynaa meel walba oo aad joogtaan dadkii dunida islaamka inuu soo ducaynaynaa qaybta markeen meesha uga gudubno arrimaha xajka siday wax u dhacaan barnaamijyadeena dambe marka xajka soo dhamaada ayaan iskula eegi doonaa inta aynu xajka wax yar waqti kooban baaba nooga haray ilaa bari inta ka horeyso wixii macluumaad aan helnana waa idin la socodsiin doonaa qodobka ugu dambeeya barnaamijka galabta waxaynu ku soo afjaraynaa walaalaha qiimiga lahow wasiirka arrimaha dibadda dalka Iran Abbas ayaa sheegay in haddii wada hadallada iyo heshiiska Mareykanka uu doonayo Iran uu la galo ay macnaheedu tahay in gabi ahaan Iran ay baabiiso uraniumka ama walxaha laga sameeyo nuclearka taasi inay ku soo dhamaanayso guul darro oo aysan Iran waligeed aqbalaynin Abbas waxa uu leeyahay Iran waxay diyaar u tahay in ay samaysanin hubka wax gumaado warka sheegay inay Iran samaystaan nuclearka wax gumaada inay been tahay ee uu sheegay xogayaha hay'adda nuclearka qaramada midoobay the International Atomic Energy Agency hadalkaasi Rafael Grossi uu sheegay wuxuu leeyahay waxba kama jiraan hadalkan ayaa Abbas uu jeediyay mar uu ku sugnaa maanta magaalada Qaahira dalka Masar halkaas oo uu garab taagnaa wasiirka arrimaha dibadda dalka Masar haddaba Iran waxay leedahay diyaar baan u nahay inaan ka wada xaajoono inaynu ka tanaasulno hubka nuclearka laakiin midka nabadda ah kama tanaasuleyno wada hadallada Iran iyo Mareykanka rajo badan ayaa laga muujinayay laakiin Israa'iil ayaa u muuqatay in Mareykanka iyo xulafadeeda inay ku cadaadinayso Iran xitaa inaan loo ogolaanin
samaysashada hubka nuclearka ama nidaamka nuclearka midkiisa nabadda ah guud ahaanna inay ka talaasuso haysada uraniumka ama walxaha suurto gelinayo in nuclearka ay samaysato